waxaan arkay guri oo gubanay hay waalidiinteeda dhinaceeda degan gurigii wixii guuma oogi laa ka soo gubanay waa arkay marka dibka caliya dib korontana waa la sheegaa naag maseertina waa la sheegaa run iyo been waxay yimid hay naag maseerta gubto ana sida wallaahi ida gubtay allah inay run yihiin been yimid naag oo maseertay gubtay guriga run iyo been waxay man koronta la sheegaa run iyo been waxay yimid badanaan saar naag oo maseertay waay guriga ma degmay ruuy baan waxay yimid haye maxaa kale markaad yaa wax ku noqdeen wallaahi qof wax ku noqdo ma arkin ilaahay waan mooti sida markii khasaarantay leeyahay way khasaaran kale meera guriga waa gubtay alaabta dhan way baabaaday umada ilaahay guri waxa sheegay male oo doob ilaahay nin waayeel ku jiray alla waayeelkana la soo bixiyay ay alaas ilaahay ma mootay ilmaan oo mootay naagta sartay gubtay leeyahay ma baxda ku soo qabtay wallaahi inay baxda inay joogto ilaa hadda kale aniga meeshka ma qaan degdeg gabar maseersan ayaa waxa ay gubtay xaafadda Siigaale ee degmada Hodan guri ku yaala walow arrinkaasi dadka deegaanka ay ku noqotay mid ay aad ula yaabaan gabadhan maseersan ayaa waxa la soo warinayaa in ninkeeda dhawaan uu guursaday gabar kale iyaduna ay ku ogeed misana ay raali kaga ahayd markii uu guursanayay laakiin dareenkeeda ay xakameyn weyday ugu dambeyn ay go'aansatay in gurigaasi ay gubto haddaba dadka deegaanka ayaa suuxi ku waabariistay guriga oo dab ka holcaya ugu dambeeyna waxa ay bilaabeen sidii dabkaasi loo damin lahaa xaalada jira marka aad fiiriso dadka qaarkii waxa ay tilmaamayaan suurtagalnimada waxyaabaha la tilmaamayo iyo sida xaaladu tahay haddaba gabadha maseersan ayaa xaaladeeda caafimaad iyada naftirkeeda loo yaaba mar haddii dareenkeeda iyo damiirkeeduba uu siiyey in guri caadi ah oo qarash badan ku baxay ay gubto maxaad moodaysaa ninka iyada qabay dadka qaarkii waxay ku taliyeen ninkaasi inuusan u soo dhawaanin gabadha waxaa suurtagal ah in biyo karkaraya ay ku shubto haddaba saaxiib intaan u gudagal marka hore waxaan idin codsanayaa badan in aan soo bandhigno haddaad horey noola joogtana madaxaad inoo saaran tihiin dhaliil ammaan bogaadin tale iyo tusaale haddaad inoo heysaan qaybta comment inoogu reebo sheertana ku sii qabta si aan u helno saaxiibo wanaagsan adiga oo kale gabar maseersan waxa ay gubtay guri ku yaala xaafadda Siigaale degmada Hodan ee gobolka Banaadir arrinkaasi oo dadka deegaanka aad uga argagaxeen ula yaabeen sida gabadhan ay sameysay iyo dareenkeeda waxa ku dhacay mar haddii iyadoo gabara oo maseertay ay dhibkan geysatay maxaad moodaysaa ninka iyada qabay hadduu soo agseexdo ama waa ay dilaysaa ama dab ay markaasi korkiisa biyo karkaraya inay ku shubto ay suurtagal tahay ninka iyada qabay dhawaan ayuu guursaday dadka qaarkii waxa ay tilmaameen in iyadu xataa loo sheegay raalina ay kaga ahayd laakiin ay markaasi ku qarowday dhowr mar ugu dambeynna ay wax ay sameysay markii ay ka sii weyday ninkana ay weyday gurigaasi dab ay qabadsiisay ilaa iyo hadda guriga waxa uu ka haleeyana dadku badankii aad bay ula yaabayaan laakiin xaaladaha jira marka aad fiiriso waxa kuu soo baxaya in wax waliba dhibkeeda markaasi ay leedahay haddii aan markaasi laga taxadirin siday tahayna aan loo fiirinin sheekooyin badan ayaa isbarbar socda oo dadka qaarkii ilaa iyo hadda ay aad ula yaaban yihiin sababtuna waxay tahay gabadhan maseersay haddii xataa ay xamil weyday ninkeeda maxay furiin kaga dalban weyday maxay tahay sababta ay guri qarash badan ku baxay ay u gubayso amaba ay u gubtay ilaa iyo haddana iyada jaan iyo ciri meel ay dhigto ayaa la weysan yahay oo waxaa dadka qaarkii ay tilmaamayaan in gabadha tani iyada naftirkeeda in la baxnaaniyo goob caafimaad la geeyo ay fiican tahay mar haddii xaaladeedaba ay sidan tahay ay suurtagal tahay in qof bini aadina naftiisa ay ku qamaarayso su'aalooyin badan ay dadka qaar isweydiinayeen laakiin xaaladaha jira marka aad fiiriso waxa kuu soo baxaya in dadka qaarkii xaaladooda ay tahay mid aad u liita mar haddiiba maskaxdooda iyo damiirkoodaba uu siiyey in ay markaasi dab qabadsiiyaan guri markaasi qarash badan ku baxay dhismihiisa haddii markaasi guriga uu gubtana ay suurtagal tahay in dad ku jiifa ama hurdaya iyaguna dhaawacyo iyo waxyaabo kale uu soo gaaro
gaarayo laakiin xaaladda jira markaad qiimeyso dadkaasi fariin ayaa loo diro ku aadan haddii gabdhihiina ay maseeraan waxaa muhiim ah inaad kaga fogaataan goobta ay ku maseereen ilaa naftiinaba khatar ayay ku jirtaa xaaladaha jira marka aad fiirisana dadka qaarkii waxa ay kuu warinayaan amaba ay kuu tilmaamayaan in waxyaabahaasi laga gudbi karo haddaba adigana daawanaya saaxiib aragtidaada waa inoo muhiim fikirkaagana xor baad u tahay qaybta commentiga waad nagula wadaagi kartaa aragtidaada sidaad u aragto gabadhan maseertay iyo guriga ay gubtay iyo dadka qaar siday uga falcelinayaan iyo waxa la gudboon ninka gabadhan qaba mar haddii uu maseerkeeda uu heerkaasi gaaray adigu naag oo maseertay gubtay guriga dadkan waxay sheegayaan in qof maseerto oo gurigan inay gubtay على شيء جاي أو معناه خف أو قريان دقنيدي إن دبك كبلاوي دبك السيد هذا لكم مخلا واسوق عادي دبكي لو ركب بلاوني إنه أود منه ماشي أنا قريان أوجد دبك كعاي ساك عادي أفر ساعة من الملاس وكله أنا وهردا سنا واسوق على تلفونه ولا يسوي على تلفون كي أخبتي خفك يسوي عنه ولا هلا ما ركتي هالمر وحام خل دبخ marka waxa amlay joogto oo guri ma soo dim waxa saasna markaan soo baxayo waxa arkay qaaci iyo wixii isdadaba socdaan halkaan kala soo hadlayo waa xaafadda Siigaale degmada Hodan ee gobolka Banaadir gurigan iga dambeeyay goordhow waxa laga damiyay dab ka kacay taasoo dadka qaarkood ay ku sheegeen in gabar maseertay oo degmada gurigan ay dabka ka kacisay halka dadka qaarkood ay sheegayaan in koronto uu ka dhashay dabkani ma cadda ujeedada rasmiga ah oo ka dhashay dabkan gurigan sida tan u galay taasoo ku muuqatay in shan qol oo ka sameysnaa gurigan gibi ahaanba oo dhulka u galay isagoo burbur aad u xoogan oo u geystay dabkii ka kacay gurigani sidoo kale waxa jira khasaare hantiyadeed oo quraah mana jirta khasaare nafeed dadka deegaanka dadkii degnaa gurigoona la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin khasaare nafeed waxayna sheegeen in burbur hantiyadeed oo aad u xoogan uu soo gaaray gurigan taasoo sababtay dabkii ka kacay sabab u dhacaynaa dabkan guriga horta saakay horta nabada lagu waabirista ma fahamtay oo kadib maxaa ka waran meeshii dabkii oo holcay zaid naqanay marka laakiin dadkan waxay sheegayaan in qof maseerto oo gurigan inay gubtay على شيء جاي أو معناه خف أو قريان دقنيدي إن دبك كبلاوي دبك السيد هذا لكم مخلا واسوق عادي دبكي لو ركب بلاوني إنه أود منه ساسي وعدين والله بالله تلا وقت ناق بحكي لك مسير ناق دلو أرو ساسو كله يبغى تاسل هذا مسير درتي سوا سيد دبك هذا لكم عن حقيقة سنة مسير درتي سوا هكذا والله ما أركوي دارك لا أنا بكو بلاو ولا من أركوي هكذا خسارة والله بلا أرت خسارة مالد لي ما هنا خسارة نفهم مجارين waxaa arkay guri oo gubanay waalidiinteeda dhinaca degan gurigi wixii guumo ilaa ka soo gubanay waa arkay marka dabka caliya dab korontana waa sheegay naag maseertina waa sheegay run iyo baan waxay yimid hay naag maseerta gubtay ha sida wallahi ida gubtay allah inay run yihiin baan yimid naag oo maseertay gubtay guriga run iyo baan waxay man korontaal sheegay run iyo baan waxay yimid badanaan saar naag oo maseertay waay ha run iyo baan waxay yimid haye maxaa kale markaad iyo wax ku noqdeen wallahi qof wax ku noqdo ma arkin ilaahay waan mooti sida markii qasarantay leeyahay way khasaaran kale meera guriga waa gubtay alaabta dhan way baabaaday umada ilaa guri waxa sheegay male oo doob ilaa nin waayela ku jiray alla waayelkana la soo gudbay ay alaas ilaahay ma mootay ilmaan oo mootay naagta maseertay gubtay leeyahay ma baxda ku soo qabtay wallahi inay baxda inay joogto ilaa hadda ma og kale aniga meesha kama khaan haka saas ay xijiraan meeshaan gurigan أوجد دبك كعاي ساك عادي أفر ساعة من الملاس وكله أنا وهردا سنا واسوق على تلفونه ولا يسوي على تلفون كي أخبتي خفك يسوي عنه ولا هلا ما ركتي هالمر وحام خل دبخ marka waxa amlay joogto oo guri ma soo dim waxa saasna markaan soo baxayo waxa arkay qaaci iyo wixii isdadaba socdaan aniga marka geeskiga soo baxay guriga dhan saan oo baabacay maalmahan dambana ma aragtay korontada waa maqneed marna waa bixiyay marna waa iimaanayso korontadana beeka waa marna waa iimaanayso marna waa bixiyay marka mar ay nagu soo daahan farsamada iyo mar oo caadi oo okay iska ahaado inta soo iska guriga marka
may koronto ka kaca may qof wax ma ku gaaran balaankana furta si ay idiin soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan soo bandhigno haddaad horey noola joogtana madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddaad inoo haysaan qaybta commenti inoogu reeba sheertana kusii qabta si aan u helno saaxiibo wanaagsan adiga oo kale waa nabadoonka youtuberada Soomaaliyeed xaji duceed le waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada xiisaha badan ee aan soo bandhigno muuqaalkan kiisa xigeenteena ku kulmi doona anagoo isku duuban waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabad gelyo waxaan arkay guri oo gubanay hay waalidiinteeda dhinaca degan gurigi wixii guuma oogi laa ka soo guuna waa marka dib ka caliya dib korontana waa la sheegaa naag maseertina waa la sheegaa run iyo been waxay yimid hay naag maseerta gubtay ana sida wallahi ida gubtay allah inay run yihiin been yimid maxalla naag oo maseertay gubtay guriga run iyo been waxay man koronta la sheegaa run iyo been waxay yimid badanaan saar naag oo maseertay waay ruy been waxay yimid haye walaa qof wax ku noqdo ma arkin ilaahay waan mooti way khasaarad kale meera guriga waa gubtay alaabta dhan way baabaaday umada ilaahay guri waxa sheegay male oo doob ilaahay nin waayela ku jiray alla waayelkana la soo bixiyay ay alaas ilaahay waa mootay ilmaan oo mootay naagta sartay gubtay leeyahay ma baxda soo qabtay wallahi inay baxda inay joogto ilaa hadda oo kale aniga meeshka ma qaan degdeg gabar maseersan ayaa waxa ay gubtay xaafadda Siigaale ee degmada Hodan guri ku yaala walow arrinkaasi dadka deegaanka ay ku noqotay mid ay aad ula yaabaan gabadhan maseersan ayaa waxa la soo warinayaa in ninkeeda dhawaan uu guursaday gabar kale iyaduna ay ku ogeyd misana ay raali kaga ahayd markii uu guursanayay laakiin dareenkeeda ay xakameyn wada ugu dambeyn ay go'aansatay in gurigaasi ay gubto haddaba dadka deegaanka ayaa suuxi ku waabariistay guriga oo dab ka holcaya ugu dambeeyna waxa ay bilaabeen sidii dabkaasi loo damin lahaa xaalada jira marka aad fiiriso dadka qaarkii waxa ay tilmaamayaan suurtagalnimada waxyaabaha la tilmaamayo iyo sida xaaladu tahay haddaba gabadha maseersan ayaa xaaladeeda caafimaad iyada naftirkeeda loo yaabaa mar haddii dareenkeeda iyo damiirkeeduba uu siiyey in guri caadi ah oo qarash badan ku baxay ay gubto maxaad moodaysaa ninka iyada qabay dadka qaarkii waxay ku taliyeen ninkaasi inuusan u soo dhawaanin gabadha waxaa suurtagal ah in biyo karkaraya ay ku shubto haddaba saaxiib intaan u gudagal marka hore waxaan idin aan soo bandhigno haddaad horey noola joogtana madaxaad inoo saaran tihiin dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddaad inoo haysaan qaybta commenti inoogu reeba sheertana kusii qabta si aan u helno saaxiibo wanaagsan adiga oo kale gabar maseersan waxa ay gubtay guri ku yaala xaafadda Siigaale degmada Hodan ee gobolka Banaadir arrinkaasi oo dadka deegaanka aad uga argagaxeen ula yaabeen sida gabadhan ay sameysay iyo dareenkeeda waxa ku dhacay mar haddii iyadoo gabara oo maseertay ay dhibkan geysatay maxaad moodaysaa ninka iyada qabay hadduu soo agseexdo ama waa ay dilaysaa ama dab ay markaasi korkiisa biyo karkaraya inay ku shubto ay suurtagal tahay ninka iyada qabay dhawaan ayuu guursaday dadka qaarkii waxa ay tilmaameen in iyadu xataa loo sheegay raalina ay kaga ahayd laakiin ay markaasi ku qarawday dhowr mar ugu dambeynna ay wax ay sameysay markii ay kasii weyday ninkana ay weyday gurigaasi dab ay qabadsiisay ilaa iyo hadda guriga waxa uu ka haleeyana dadku badankii aad bay ula yaabayaan laakiin xaaladaha jira marka aad fiiriso waxa kuu soo baxaya in wax waliba dhibkeeda markaasi ay leedahay haddii aan markaasi laga taxadirin siday tahayna aan loo fiirinin sheekooyin badan ayaa isbarbar socda oo dadka qaarkii ilaa iyo hadda ay aad ula yaaban yihiin sababtuna waxay tahay gabadhan maseersay haddii xataa ay xamil weyday ninkeeda maxay furiin kaga dalban weyday maxay tahay sababta ay guri qarash badan ku baxay ay u gubayso amaba ay u gubtay ilaa iyo haddana iyada jaan iyo ciri meel ay dhigtay ayaa la weysan yahay oo waxaa dadka qaarkii ay tilmaamayaan in gabadha tani iyada naftirkeeda in la baxnaaniyo goob caafimaad la geeyo ay fiican tahay mar haddii xaaladeedaba ay sidan tahay ay suurtagal tahay in qof bini aadina naftiisa ay ku qamaarayso
su'aalooyin badan ay dadka qaar isweydiinayeen laakiin xaaladaha jira marka aad fiiriso waxaa kuu soo baxaya in dadka qaarkii xaaladooda ay tahay mid aad u liita mar haddiiba maskaxdooda iyo damiirkoodaba uu siiyey in ay markaasi dab qabadsiiyaan guri markaasi qarash badan ku baxay dhismihiisa haddii markaasi guriga uu gubtana ay suurtagal tahay in dad ku jiifa ama hurdaya iyaguna dhaawacyo iyo waxyaabo kale uu soo gaarayo laakiin xaaladda jira markaad qiimeyso dadkaasi fariin ayaa loo diro ku aadan haddii gabdhihiina ay maseeraan waxaa muhiim ah inaad kaga fogaataan goobta ay ku maseereen ilaa naftiinaba khatar ayay ku jirtaa xaaladaha jira marka aad fiirisana dadka qaarkii waxa ay kuu warinayaan amaba ay kuu tilmaamayaan in waxyaabahaasi laga gudbi karo haddaba adigana daawanaya saaxiib aragtidaada waa inoo muhiim fikirkaagana xor baad u tahay qaybta commentiga waad nagula wadaagi kartaa aragtidaada sidaad u aragto gabadhan maseerta iyo guriga ay gubto iyo dadka qaar siday uga falcelinayaan iyo waxa la gudboon ninka gabadhan qaba mar haddii maseerkeeda uu heerkaasi gaaray adigu naag oo maseertay gubtay guriga dadkan waxay sheegayaan in qof maseerto oo gurigan inay gubtay على شيء جاي ومعناه خف وقريان دقنيدي إني دبك كبلاودي دبك السيد هذا الكم مخلا واسوق عادي دبكي لو ركب بلاوني إنا أود منه ماشي أنا قريان أوجد دبك كعاي ساك عادي 4 ساعة من الملاس وكله أنا وهردا سنا واسوق على تلفونه ولا يسوق على تلفون كي أخبتي خفك يسوق عن ولا هلا ما ركتي هالمر وحامخ الدبخ marka waxa amlay joogto oo guriga soo dimo waxaan saasnaa markaan soo baxayo waxaan arkay qaaci iyo wixii isdadaba socdaan halkan kala soo hadlayo waa xaafadda Siigaale degmada Hodan ee gobolka Banaadir gurigan iga dambeeyay goordhow waxa laga damiyay dab ka kacay taasoo dadka qaarkood ay ku sheegeen in gabar maseertay oo degmada gurigan ay dab ka kacisay halka dadka qaarkood ay sheegayaan in koronto uu ka dhashay dabkani ma cadda ujeedada rasmiga ah oo ka dhashay dabkan gurigan sida tan u galay taasoo ku muuqatay in 5 qol oo ka sameysnaa gurigan gibi ahaan boo dhulka u galay isagoo burbur aad u xoogan oo u geystay dabkii ka kacay gurigani sidoo kale waxa jira khasaare hantiyeed oo quraah mana jirta khasaare nafeed dadka deegaanka dadkii degnaa gurigoona la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin khasaare nafeed waxayna sheegeen in burbur hantiyeed oo aad u xoogan uu soo gaaray gurigan taasoo sababtay dabkii ka kacay sabab u dhacayo dabkan gurigan horta saakay horta nabadgeli labada lagu waabiristay mafahant oo kadib maxaa ka waran meeshii dabkii oo holcay zaid naqanaay marka laakiin dadkan waxay sheegayaan in qof maseerto oo gurigan inay gubtay على شيء جاي ومعناه خف وقريان دقنيدي إني دبك كبلاودي دبك السيد هذا الكم مخلا واسوق عادي دبكي لو ركب بلاوني إنا أود منه ساسي وعدين والله بالله تلا وقت ناق بحكلمك مسير ناق دلو أرو ساسو كلا دبات سير لا مسير درتي سوا سيد دبك هذا الكم حقيقة سنة مسير درتي سوا هكذا والله ما أركوي دار كلا أنا بكو بلا ولا من أركوي هكذا خسارة والله بلا أرت خسارة مالد لي ما هنا خسارة نفهم مجارين waxaan arkay guri oo gubanay waalidiinteeda dhinaca degan gurigi wixii guumo ogi la ka soo gubanay waa marka dabka caliya dib korontan wal sheega naag maseertin wal sheega run ibaan waxay yimid hay naag maseerta gubtay ana sida wallahi ida gubtay allah inay run yiina baan yimid naag oo maseertay gubtay guriga run ibaan waxay man korontan sheega run ibaan waxay yimid badanaan saar naag oo maseertay waay guriga ma degmay run ibaan waxay yimid haye maxaa kalmad yaa wax ku noqdeen والله خفح كنا خذ معركة إلى وان موتي. وي خسارة كل مرة جوري وقفتي على تنا ويك بابا مدة إلى جوري واحد شيء ماله ومدوب إلى من ويلا كجري على ويل كنا ليسوي. أي على سلام وموتي المان وموتي. والله إني بحد إني بجوكت إلى عدم وكل أنا ماشي كم خام. هاكا ساسي حجران. meeshaan gurigan u jeedaa dabka kacay saaka caadi 4 saac mal meelahaas oo kale ani waa hurdaysnaa waa soo kacay telefoon waa la isoo wacay telefoonkiisa qabtay qofkii isoo wacay oo la hadlay ma aragtay hal mar waxa maqal dabaq
marka waxaan u maleeyay jugto oo guriga soo dim waxaan isla markaan soo baxay waxaan arkay qaaci iyo wixii isdaba socdaan aniga marka geeskiga soo baxay guriga dhan saan oo baabacay maalmahan dambana maaragtay korontada waa maqneed marna waa bixisay marna waa iimaanayso korontadana beeka waa marna waa iimaanayso marna waa bixisay marka mar ay nagu soo daahan farsamada iyo mar oo caadi oo okay iska ahaado intaas oo iska ah guriga may koronto ka kaca may qof wax ma ku gaaran alxamdulillah gambalaalkana furta si ay idiin soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan soo bandhigno haddaad horey noola joogtana madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddaad inoo haysaan qaybta comment inoogu reeba sheertana ku sii qabta si aan u helno saaxiibo wanaagsan adiga oo kale waa nabadoonka youtuberada Soomaaliyeed xaji duceed le waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada xiisaha badan ee aan soo bandhigno muuqaalkan kiisa xigeenteena ku kulmi doona anagoo isku duuban waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabad gelyo